السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلام يا بعد السلام حرجين إن شاء الله إن هاكي كله ذاقو نهاية أكشن انشوء عالمية أو هذه أما هذه شغالة نكا الحضورنتا خاصة بالكواليفايد إنامينيتريس وكشغالين دونا Soomaaliya labadaba هاية أكشن هاية عالمية oo ka hawlgasha in ka badan 45 dal kana shaqeysa waxa loo yaqaan gender equality and fertility education waxay doonaysaa inay shaqaaleysiiso waxa loo yaqaan inaminatrix kaasi wad garan kartaano waa dad inta badan qaabilsan xog ururinta iyagoo isticmaalaya marka tools kala duwan oo marka loo assign gareynayo sida ODK-ga oo ay kamid tahay Allahumma salli ala Muhammad waxyaabaha ay marka ka shaqeyn doonaan waxa kamid ah inay soo ururiyaan data accurate ah oo quality-geeda iyo isku-halaynteedu fiican tahay iyo sidoo kale inay qabtaan waxa loo yaqaano household surveys focus group discussions waxyaabaha noocaas ay qabanayaan kolley laydin sheegi maayo dadkii kusoo shaqeeyay waxa loo yaqaano programka loo yaqaano maxaa la yiraahdaa inaminatriska waxa marka kale waxyaabaha qabanaya waxa kamid ah key information interviews ka kamid ah keyga waxa loo yaqaano sida tusaale ahaan kale inay booqdaan isla-tigareeyaan villageska meelaha xarumaha kale ee marka loo assign gareeyo aqoon ahaan maxaa looga baahan yahay qofka doonaya inuu tusaale ahaan kale boos ka qabto maxaa aqoon looga baahan yahay what type of knowledge baa looga baahan yahay waxa looga baahan yahay bachelor ama diploma in social science or research inuu experience u leeyahay qualitative and quantitative data collection experience u leeyahay mobile data collection such as sida Kobo, Collecti and Open data kits inuu fahansan yahay marka waxa loo yaqaano standardka ay action loo shaqeyso in luqadda Ingiriisiga iyo Soomaaliga aad u wanaagsan yahay inuu haysto 2 sano oo waayanimo hore oo xagga data collection ka leeyahay si marka aad u xareyso shaqadan it means waxaad u baahan tahay inaad soo raacayso waxa loo yaqaano cover letterkii oo 1 page ah iyo 2 ama 3 page oo ah CV-gaagii kuna dirto marka maxaa la yiraahdaa action email-keeda ku yaala qaran jobs ama aan soo gelin doono linkiska xagga hoose soo dhigi doono insha Allah kaas aad ku diri doontaan shaqada kale aan rajaynaa insha Allah inaad la xareysto ama iyaguna iska fudud waxa kamid ah WFP ba waxay soo xaysay shaqooyin dhowr ah garowo kala tusaale ahaan oo kale hay'adda loo yaqaan WFP waxay ka rabtaa garowe shaqadan aan sheegi doono taasoo dhankeedu yahay 22 bishan labaad position kala soo xaysay waa program business support assistant baa loo baahan yahay call center operator baa loo baahan yahay waa loo position loo baahan yahay waan garowe badanaa garan kartaano shaqadan haddaan yar fasiro shaqo ahaan maxaa qofka looga baahan yahay waxaa ka mid ah carry out telephone operator duties for the compliance and feedback mechanism including not limited to receiving calls launching and managing launch complaints and response in the case of management softwares receive and verify beneficiaries feedback information from partner organizations and partner agencies inta badan qofkani waa qof ku shaqeyn doona xarunta iyo systemka marka adeegista telefoonada iyo wixii la halmaala in marka sidoo kale uu feedback-yada iyo wax warbixinaha kale in marka dadka ay WFP adeegisa uu ka qoro feedbacks uu ka sameeyo inuu recorded data ama information management uu ku sameeyo maxaa la yiraahdaa warbixinaha WFP marka incoming and outgoing correspondence waxa loo yaqaan marka insha Allah shaqada kale waa iska fududahay ku sii raagi maayo technical keeda waa akhriin kartaa oo waxa soo gelinay xagga hoose iyadoo marka linkiga soo gelinay xagga hoose maxaa laga baahan yahay aqoon ahaan secondary education baa laga baahan yahay khaasatan inaad soo kala haysatay soo kale humanitarian work development economics or other related field to WFP programmatic activities experience waxa laga baahan yahay ilaa 4 sano qofku leeyahay luqadda Ingiriisiga oo ku hadli karo
oo markaa si fiican adeegsan kara iyo Soomaaligaba shaqadan email ugu diri maayo sayid iska caadi ah inta badan qofku wuxuu sameystaa username uu sameystaa marka keep in mind insha Allah inaad shaqooyinka markaa WFP ay soo gelisay waa dhowr isku xilina waa dhacayaan haddaan idin sheego isku xilina waa dhacayaan marka WFP waxay doonaysaa sidoo kale operation assistance bay baahan tahay waxa kale oo baahan tahay HR officer bay baahan tahay Muqdisho looga baahan yahay waxa kale oo baahan tahay program business support garooga waxa kale oo baahan tahay program business support assistant call center operator baa loo baahan yahay oo ah 3 position oo garooga marka waa guud ahaan shaqooyin badan bay runtii soo baahisay marka insha Allah hadii la ka dhigo in shaqooyinka la xarayo la balagareeyo qofkii u baahan CV-ga iyo arrimahaas inuu aan la barbar gareeno wuxuu naga soo xili karaa WhatsApp numberka 0634862926 waa 0634862926 marka keep in mind in shaqooyinka insha Allah xaraysan qof la lagu dadaalo in militariska iyo shaqooyinka WFP secondary level ka badan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.